waxgaradka qowmiyadda madaxweynaha dalka uu ka soo jeeday ee Kukuyada ayaa waxa ay sheegeen inaysan weli go'aan ka gaadhin ruuxa ay madaxweynaha u qaadan doonaan sanada 2022 warbixintaasi waxa inoo haya wariyahayaga Maxamed Mooge Askar. golaha odayaasha qowmiyadda Kikuyu ayaa ka wada hadlaya cidda doorashada soo socotay u taageeri lahaayeen xilka madaxweynenimada dalka. Gudoomiyaha golaha beesha Kikuyu Wachira Kiago ayaa sheegay in odayaasha qowmiyadiisu aysan heshiis ka gaarin siyaasiyiinta u hanqaltaagaya doorashada madaxtinimo ee dalka ka dhici doonto sanada 2022. And that is why I'm saying we have never discussed 2022. I am finding, as I repeat again, I'm finding it very. I have been very vocal myself. Why are people bringing 2022 politics, right? When we have just come from an election last year, yeah? I have told people, please stay away. We know they will come, but there is so many things that we need to sort out together as our people in order for us to be able to have, yeah, a peaceful choice in 2022, right? And part of that is focusing on the development agenda. Dhanka kale barazaabka ismaamulka Nyeri Mutahi Kahiga ayaa ku baaqay in la muujiyo dulqaad siyaasadeed isla markaana aan weli go'aan laga gaarin cidda beeshu ay taageeri doonto. Ruto uu haaminayay inuu taageero xoog leh ka heli doono beesha madaxweynaha dalka uu ka soo jeedo ayaan weli ogeyn si buuxda taageerada uu ka heli doono beesha Kikuyu.